dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij kale oo aan uga hadli doono dunida. Barnaamijkan maanta waxaan naga hadli doonaa wadamada ugu raqiisan ee lagu noolaan karo maciishadooduna ay aad u jaban tahay. Wadanka ugu horeeya haddaan soo qabanno waa Bolivia. Bolivia wuxuu ku yaalaa qaaradda Latin America ama South America. Wadankan Bolivia wuxuu daris leeyahay Peru iyo Chile. Dhaqaalaha ugu badan wadankan dadkiisu waxay ka soo galaan beerashada. Magaalada ugu raqiisan ee lagu noolaan karo wadankan waxaa magaceedu la dhahaa Cochabamba. waa magaalo dhaqaalaheedu aad u kobcayo, haddana guryaheedu ay raqiis yihiin. Cuntadeedu sidoo kale ee aad raqiis u tahay oo $2 iyo wixii ka yar cunto fuul ah lagu cuno. Waxa u baahan tahay Bolivia inaad ku noolaato luqadda Isbaanishka inaad barato oo keliya. Wadanka xiga ee aan ka hadli doono maanta waa Cambodia oo ku yaalo qaaradda Asia. Cambodia wuxuu daris leeyahay Russia, China iyo wadamo kale. Meelaha ugu caansan ee Cambodia laga tago waa Angkor Wat. Cambodia dadkiisu waa dad aad u dhib yar, jecelna dadka inay soo dhaweeyaan. Sidoo kale Cambodia waa wadamada ugu raqiisan ee lagu noolaan karo. Tusaale, bishii qoyskii 6 qof waxaa ku filan $1,000 oo keliya. Shaqaalaha guryaha ka shaqeeyo waxay qaataan lacag $40 bishii oo dhan. Inta badan wadanka Cambodia waxaa looga hadlaa luqadda Ingiriiska. waa wadan cimiladiisu aad u kulushahay. hadduu kuleelku ku dhibayo waxaa habboon inaad ka fiirsato intaadan tegin ka hor ama dhakhtar aad la tashato. Wadanka saddexaad ee aan ka hadli doono maanta waxaa weeye wadanka Philippines oo isna ku yaala isla qaaradda Asia. waa wadan maciishadiisu ay aad u jaban tahay, Ingiriiskana looga hadlo aad. guryaheedu iyo saxmadeedu ayaa aad u badan. guryaheeduna way yar yihiin, laakiin wuxuu leeyahay jasiirado aad u tiro badan oo qurux badan. Magaalada ugu qurux badan oo in la dego habboon waxaa ka mid ah Tagaytay, magaalo la dhaho. guryaheedu si dhib yar ayaa lagu helaa. Magaaladan waxaa ka mid ah meelaha loo dalxiis tago oo aad u qurux badan. Harada Taal ama Lagta Taal qofba suu u yaqaano. waa wadan dalxiiska ku fiican, maciishadiisuna aad u raqiis tahay. Wadanka afraad ee maanta aan ka hadli doono dhageystayaal waxaa weeye wadanka Vietnam. intiina badan Vietnam waxaa laga yaabaa inaad ka daawan jirteen filimaanta oo keliya. 15 sano ee ugu dambeeyay wadanka Vietnam dhaqaalihiisu aad ayuu u kacay. caasimada Vietnam waxaa la dhahaa Saigon. wadankan Vietnam waa wadan dadkiisu beeraley yihiin. sidoo kale waa wadan inta badan dadka ku nool aysan cunto karsanin. cuntadiisu ayaa aad raqiis u ah. maqaayadaha ayay inta badan dadka ka cunaan. magaalada ugu habboon in lagu noolaado waxaa la dhahaa Da Nang. waa magaalo aad u qurux badan, dalxiisayaal badan ay sanadkii imaadaan. waa wadan lagu noolaan karo qoyska $1,000 lacag ka yar. waxaan filayaa dhageystayaal inaad ka hesheen barnaamijkan. intaan barnaamijkan mid kaloo lamid aan ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum.